طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد برنامج كأني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. برنامج كان وأن كسر قادنه جزء كمدأ جزء كقرآن ككريم كأه وأن نكهذا المدة 8 دقيقة تقريبا. macaanida juskaas uu xambaarsan yahay guud ahaan barnaamijkan ugu talagalnay qofka muslimka markuu akhrinayo wardigiisa inuu la socdo macnaha caamka ee juskaas uu ka hadlayo taqriiban anagoo ula jeedin 10 daqiiqo aan awoodina inaan ku wada fasirno juska quraanka ah. maanta casharkeenu wuxuu ka bilaabmayaa insha Allah taala juska 22aad ee quraanka kariimka markii dhanka suurada Faatiha iyo Baqara iyo xagga laga soo bilaabo juska 22aad ayuu casharkeenu ka bilaabmayaa. juskaasi wuxuu ka bilowdaa suuratu al-Ankabut aayada 46 suuratu Rum oo dhan, suuratu Luqman oo dhan iyo suuratu Sajda 30 aayada u horeysa suuratu Sajda iyo 30 aayado suuratu al-Ahzab. marka waxa weeye وأحزاب عنكبوت قار كميد هي سورة روم هي لقمان هي سجدة انت اسمك كوبين هاي جزء القرآن كا أرمها وين جزء أو كهالله هدان سكودينا إن دول مرنو إلهي سبحانه وتعالى وحنو أمريا سورة العنكبوت أو كريس هدان كسب بلونه مالها الإسلامية ولا يقبل كرا أو لجوت تدبر كرا وحكمد إلهي سبحانه وتعالى marka uu leeyahay wala tujadilu ahla alkitabi illa billati ahsan illa alladhina zalamu minhum. ilaahay wuxuu amriyaa subhanahu wa ta'ala marka dadka diinta u sheegayno siba ahlu kitaabka oo ay yahuuda iyo nasaarada inaan si wanaagsan oo latifsan aan ula doodno. taasna waa duruus waxa ku jirta xagga iblaaq ama gaarsiinta dadka diinta marka la gaarsiinayo siba dadka ducaada ah in ay tarbiya ka qaataan oo waliba maadaama ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala dadka ahli kitaabka aha marka aad la doodaysaan si wanaagsan ahsan waxa way sida ka sii wanaagsan tahay ula hadla. maxaad moodaa marka qofkii walaalka aha ee muslimka ah as khilaafsantiin ama mas'ala aad ka wada doodaysaan halka waxa ka fahmaysaa inuu kaaga si awleysan yahay soo uga si haboon yahay inaad hadalka u dhimrisid. ilaahayna wuxuu amray dadka muuminiinta ah in garbaha loo raariciyo oo loo dhimriyo. nabigana sallallahu alayhi wasallam dacwadiisu waxay ahayd yasiru wala tu'asiru wa bashiru wala tunfiru. macnaheedu yahay dadka u fudeeya dadka ha cayrinina. marka halka tarbiya ayaa ku jirta. aakhirka suuratu al-Ankabut suurada oo juska uu ka bilaabmayo ma aragtayno hore u sheegnay ilaahay wuxuu amrayaa inaan aanu fiirfiirino oo ku ta'amulno oo ku tadabburno al-afaq waxa weeye makhluuqaadka ilaahay sida samada sida dayaxa sida qoraxda sida dhulka sida buuraha oo aan soo daliilsano ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waahid yahay inuu khaaliq yahay وبالتالي inuu isagu ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiisu mudan yahay in la caabudo. ilaahay wuxuu kala ku sheegay suurada aakhirkeeda qofkii dadaala oo ku dadaala diinta oo ku dadaala aqeedada oo ku dadaala cibaadada ku dadaala ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku hanuuninayo jidka wanaagsan. ilaahay inuu ku hanuuninayo ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. kuwa ma jidkayga ma aragtay mujaahadatu waxa weeye qofku inuu bixiyo juhdi wax walba oo sameeyay ama cibaadaha ahaato ama ha ahaato birri ha ahaato ama haado sida taacada ilaahay istiqaamada qofku ku dadaala ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqda ayuu waafajiyaa. suuratu Rum haddii aan gudubno oo juska aan meelaha iyadana ka taataabno juska 22aad kamid ah waxa ay ku bilaabatay ilaahay subhanahu wa ta'ala ballan qaadayo
wuxuu ku sheegay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ruum in laga qaalib noqday laakiin inay qaalib noqonayaan taas oo tusinaysa quraankan inuu yahay min cindi ilaahi subxaanahu wa ta'aala nabi maxamed inuu yahay nabi ilaahi laana waxa qayb ah oo aan wali la gaarin ayuu sii sheegay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa ta'aala alif lam mim qulibat ar-rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إلهي سبحانه وتعالى وحكو شيء قصداس وحي روم يفرس باستغالي مركا رومنا وحي أهايين أهل كتاب فرسنا وحي أهايين دبك كو عابدو أو أهل أوثان bay ahaayeen oo maaragtay wathaniin dadka la yiraahdo aan rumaysnayn ilaahay bay ahaayeen marka muuminiintu maadaama kuwan ahlu kitaab yihiin waxay jeclaayeen inay guuleystaan ilaahay marka waxa marka hore guuleystay furus laakiin ilaahay wuxuu ugu bishaareeyay inay ruum ay guuleysan doonaan dhowr sano kadib saasaana dhacday maalintaas in ay muslimiintu ama muuminiintu ay farxi doonaan ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala halka waxa ka qaadanaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasrigu inuu biyadi ilaahay ku jiro subxaanahu wa ta'aala marka ilaahayna la weydiisto inuu ilaahay uu noo gargaaro subxaanahu wa ta'aala aayaad badan oo waxa ku jira suuradaas tusinaysa ilaahay rabbinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo inuu isagu abuuray basharka uu abuuray oo waxyaalaha ilaahay u soo delisaday waxa kamid ah ikhtilaaf al-alsun wa al-alwan ina hadalkeenu uu kala gedisan yahay khalqiga ilaahay uu abuuray qaarba luqad ay ku hadlaan midabkoodu inuu kala gedisan yahay ilaahay sawjaadka noo abuur aayaad badan oo ilaahay u leeyahay war miyin saa u jeedin oo ka bilaamaya ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إلى آياتها سنة وحكاها الليان إلهي آياتها أما علامتها لو سدي لسنكروا إلهي إنه واحد يهي وحكمدا آياتها سلسوش إنه أبوري إنه عربدين كلا قدية إنه ألوانتين كلا قدسي إنه حاسس إدين سمي إنه روب سمادا إدين كلا كان كل هذه ميد سدي لسنين بو إلهي كل يددك مشركين تاي ملحدين تاي يكون تستاهل إله نماذا إنكري ميد وحصل سدي لسنين إلهي إنه خالق يا سبحانه وتعالى سورة اللقمان وجزء كميدا إذا دا وحكتها تابنو جزء كوي لاتنات كميدا سورة waxay ku bilaawatay xusid la xusayo quraanka inuu ka yimid ilaahay xaqi subhanahu wa ta'ala oo yahay hanuun iyo shifaa hudan wa shifaa uu yahay iyo waliba naxariis wa rahma inuu dadka qofkii raaca oo ku dhaqma inuu yahay caafimaad inuu yahay hanuun inuu yahay maaragtay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay dadka muxsiniinta ay wanaaga sameeya inuu yahay waxa kale oo ay suuradu ay sheegtay dadka wanaagsan iyo dadka xun meelaha ku kala dambeyn doonaan ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين إلى لقى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وحكجر سورة لقمان وصايات كعانك لقمان الحكيم نك حكمة بدنا ويلكس ودر دار يسوى وليبا ويلكس هذا الشلعسان يا بني له إن قفك مسلم كودر دارنا سيبا دتك والدين تأيزدل تاجان وعشرة قاتان تربية الأولاد أيها لو بهاي سورة لقمان آخر كذا وحى إلهي وكو ختمي إن لو ديار قلوه قيامها يهول كذا وحن إلهي وكو إشاري مفاتيح الغيب كواسو إلهي ما نعدك ليسن أغين إلهي وحيري إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إلهي أكتس علم الساعة ساعات قرت دعس إلهي ما نعدك لما غيبك إلهي كليا أرحامته وحه يوينك أي ودان عد أوج إلهي أهين ما جرته ضد واحد دهن وهذا ولا أوجاده يو إسكان بأنت لا صار ويلوني إنه جوري هالأوجاده هذا أنت كليا أوجاشة إلهي وكهذا يو ما نور بكسب بحدونا ما وحو ما يسندونا أجل كيس منتو نغندونا
ما سعيد بو نقون دونا مد وناكسن مد شقي ومد قول دريسو نقون دونا إلهي كليا أوك سبحانه وتعالى. سورة السجدة أو جزء قيبت أيضا كمدة جزء كمدة قصدي وحي كهذا الشيء قصص بدن برنتي أكو شرته إلهي أبورستي وخلقي أبوري بعض الصفات مؤمنين صفات المامه وناكسن بعلقو شيء سورة الأحزاب هدان أوجد منه وأن ختمنا لنا 10 وقتي أن ترجلنا جوابت شوجا سورة الأحزاب waxay ku bilaabatay nabi maxamed oo ilaahay uu leeyahay ilaahay ka baq marka inuu qofkii hadii leeyahay ilaahay ka baq markii la yiraahdo waa in uu qofku uu hadii nabi maxamed bal yiri ya ayuha nabiy ittaqillah hadii la yiraahdo hadii ittaqillah lagu dhaho waa inaad ala ra's wal ayn hadii weeye aadan caroon maana ileeda aadan dhihin waxa suurada aad loogu faahfaahiyay ummahatul mu'miniin iyo xurmada ay leeyihiin iyo in aan aysan banaanayn la guursado oo hooyooyinkiina dhalo kale ay lamid yihiin waxa lagu faahfaahiyay qaswatu al-ahzab ayaa lagu faahfaahiyay iyo ahwaashi dadkii muuminiinta oo wanaagsanaa iyo dadkii munaafiqiinta ahaa ee maaragtay dhawr jibinta ku sameeyay muuminiinta iyo ahmiyada jihaadku uu leeyahay iyo ajarkiisa baa lagu faahfaahiyay insha Allah ta'ala juska ku ilaatanaad marka qofka muslimka wax loo baahan yahay quraanka markuu akhrinayo inuu ku tadabburo guud ahaan ومعناها ودوحو وددنسدو oo ku camal fala ayaa loo baahan yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigo kuwii quraanka kitaabka ilaahay akhriya oo ku tadabbura oo aan qaafiliin ahayn oo ku camal fala baan ka baryaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala allahumma ij'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi